gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Mudane Cabdilfataax Axmed Cali oo maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka Dhuusamareeb madaxda ururada bulshada rayidka iyo saaxiibo kale oo garoonka u tagay soo dhaweyntiisa gudoomiye Cabdilfataax oo Dhuusamareeb u yimid inuu qiimeeyo xaaladda biyo la'aanta ee ka jirta deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb iyo sidii maamulka degmada Yaaqshiid oo wakiil uu ka yahay biyo dhaamin ay uga sameyn lahaayeen deegaanada ayaa kulamo hordhac la qaatay mas'uuliyiinta maamulka Dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulamada iyo isxog wareysigaasi markii ay soo ilaadeen warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka Dhuusamareeb Timajlac xogayaha dawladda hoose iyo qaar kamid ah xubnaha bulshada rayidka ee soo dhaweynta ka qayb galay aad iyo aad waxaan soo dhaweynaynaa Cabdilfataax waxaan ku leenahay dalkaagii iyo dadkaagii iyo deegaankaagii ku soo dhawow waa lagu sugayay waa lagu baahan yahay waxaan ku wada joognaa dad tiro badan oo qaali ah dadkaas waxay isugu yimaadeen Cabdilfataax soo dhaweyntiisa gudoomiyaha marka xogaa yar hadaan ku darsadan waxaan leeyahay Cabdilfataax hala joojiyo gudoomiyaha laga bilaabo bahasha waxa waaye gudoomiye soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa halkan waa gurigaagii iyo gobolkaagii waxaan leenahay mar koobaad iyo mar labaadba gudoomiye waxaad ku soo dhawaataa caasimadii aad u dhalatay dadkaagii eheladaadii dalkaagii meesha aad jecleed oo joogi jirtay meesha aad waxbarashadaada ku dhammaysatay waxaan leenahay ku soo dhawaaw insha allahu tacaala waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhallinyarada soo dhaweyday farxadii noo tahay ilaa airboorka inaan soo dhaweyno macnaha aan soo dhaweynaynana wax kala maahan waa nin dhalinyaro oo caasimadda dhalinyarada joogtay hore ka mid ahaa haddana title mas'uuliyad xambaarsan aad u qiimo badan oo ugu shaqeynayo dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa iyo dadka maaragtay Soomaaliyeed ayadaas ayaan ku ixtiraamayna kuna soo dhaweynaynaa waxaana leenahay ugu duceynaynaa in Ilaahay ku ceeb asturo kulley sida hore loo sheegay wada Cabdilfataax laga tagtay laakiin maanta adoo gudoomiye Cabdilfataax aan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaaladaadii aniga maalmo ka hor Muqdisho waxaan ugu tagay gudoomiye Cabdilfataax isagoo ciidamada staff wata oo la waardiyaynayo laakiin maanta waxa leenahay ku soo dhawow caasimadda nabadda Dhuusamareeb ilaa garoonka aan kugu soo dhaweynay ilaa halkan waxaan isleeyahay maanta wax control lagu taajiyay iyo wax askar iyo midna ma aad arkin marka magaaladu waa magaaladaadii tan waa soo dhaweyntii koobaad waxa kale oo jiri doona kulamo kale iyo soo dhaweymo kale oo qaas ah ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Yaaqshiid Mudane Cabdilfataax Axmed Cali ayaa goobta uga mahad celiyay dhammaanba intii ka qayb gashay soo dhaweyntiisa waxaana uu sharaxay dareenkiisa ku aadan imaatinkiisa magaalada Dhuusamareeb dhowr bilood kadib aad iyo aad ayaan ka mahad celinayaa sharaf iyo karaamo iyo cizi ayaan Ilaahay in ka rajaynayaa Galmudug dhamaanteedna waxa waaye sidaas ayaan Ilaahay ka baryanaa si qaas ah dhalinyarada iyo maamulkooda horkacayo isku duubnida iyo dhiiranaashada iyo adkaysiga iyo samarka ay xilligan aan dareemi karo xaaladdu sida ay tahay qorraxdii kulushahay aan isku ognahay inay duruufo kale qof walba goon u haysto dhammaan ka soo tagay ani qorraxdii soo istaagay aad iyo aad ayaan ka mahadcelinayaa Ilaahay saamihiina ay ku bedelo ajir iyo xasanaad aan la koobi karin runtii Dhuusamareeb meel waxa waaye magaalooyinka kale la siman ma ahan Soomaaliya oo dhan waxa waaye waa dal Soomaali waan jecelnahay inay nabad iyo horumar gaaraan si qaas ah waligay kuma fakarinin inta guriga ka baxo warma dhiman adoo nolol ma imaan doonta kuma fakarinin laakiin markaan Dhuusamareeb ka tagay waa ka fakara taas habeenkii markay guriga ka timaado subaxii waxa waaye Ilaahay waa ku baryayo bari xalka soo noqon doona haleeda mamina lagu dhigaa weerar kale lagu dhigaa maqaraxa gaaray lagu xiraa laakiin Dhuusamareeb dadku jooga xataa malag ma ku xisaabtamaydi marka in hadda waayo qofku ajal leeyahay oo waqtigiisa ka hormareynin markasta way jirtaa laakiin masuubooyinka iyo maalkul fajaha xamar ka jiraahu meeshan kama jiro dabcan waxaan dhigi karnaa guushaas noocaas iskama imaanin dad ay yidahooda iyo lugahooda ku yimaadeen Ilaahay waxaan leenahay intii uga dhimatay xoreynta khawaarijta ajir iyo xasanaad badan ka siiyo aakhirana Allah u naxariisto inta nadan noolna dadkii nimcadaas iyo barwaaqadaas heerkaasna gaarsiiyay dabcan ayagu waxay naga mudan yihiin waa duco waa inaan u duceynaa agoomahoodiina loona duceeyaa lagana warqabo
mas-uulkan iyo xubnaha wehelinaya ayaa la filayaa inay u gudbaan deegaanada miyiga ee magaalada Dhuusamareeb ka tirsan goobaha oo qiimeyn iyo garab istaagba ay ugu muujin doonaan maamulka degmada Yaaqshiid oo wakiil uu ka yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cabdilfataax Axmed Cali kuwa oo dhagaha ka furaysan kari waayay qayla dhaanta ka imaanaysa qoysaska ku sigan inay u dhintaan biyo la'aanta kuwa oo ku nool bariga gobolka Galgaduud iyo qaybo kale oo ka tirsan gobolka. Cabdullaahi Warsamo Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.